بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن وناكسن داوديال halkan waa warbaahinta xogta dalka qodobada aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxa ugu waaweyn warbaahinta dawladda Kenya oo fashilisay dawladda Kenya iyo Soomaaliya oo dhexmari doona dagaal salka ku haya doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubaland sirta ka dambaysa carada Kenya ee Soomaaliya iyo xayiraadaha isdaba joogga ah oo la ogaaday dawladda Soomaaliya oo wadnaha jirtay dhigeeda Kenya shaacisayna in shirar horle oo laga hadlayo arrimaha batroolka lagu qabanayo wadamada dunida dawladda Qatar oo ka shiftay sababta wadamada dhaca bariga Afrika ay ugu soo duulayaan dalka Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal la isku riiqday oo ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhexmaray gobolka Shabeellaha Hoose maamulada Puntland iyo Somaliland oo noqday kuwa aan ka daalin dagaal xilli xiisad cusub ay ka soo dhex cusboonaatay labadaas maamul iyo dawladda Kenya oo baqdin ka qabta Soomaaliya isla markaana kalluumaysatada uga digtay inay u socdaalaan xeebaha dalka Soomaaliya markale daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa halkan waa xogta dalka hadii aad ku cusub tahay kanalkan hamogaanin inaad saarto subscribe si aad u noqoto kan ugu horeeya ee daawada wararkan iyo warbixinadan sidoo kale like saar share-na u dheh saaxiibada si aad ula wadaagto ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay dawladda dalka Qatar ayaa ka shiftay sababaha rasmiga ah ee dawladda dhaca ama dawladaha dhaca bariga Afrika ay ugu soo duuleen dalka Soomaaliya dawladda Qatar ayaa shaacisay sababta ka dambaysa cadaadiska saaran dawladda Soomaaliya oo saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda dalka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Qatar Maxamed bin Abdulrahman oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Qatar uu sababay in dawlado badan cadaadis ay saaraan dalka Soomaaliya wasiirka waxa uu sheegay in dawladihii xiriirka u jiray sanadii 2017 cadaadis saarayaan dawladda Soomaaliya isagoo oo sheegay in ka doonayaan inay Qatar xiriirka u jirto dawladda dalka Soomaaliya dawladda Qatar ayaa ku aamustay go'aan ka soo baxay shirkii madaxda jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka kaas oo yeesheen dalalka Sacuudiga iyo wadamada Qatar qayb ka ah dalalka nasaare xayiraada waxay ku cadaadinayaan dalka gobolka in ay anaga naga soo horjeedaan sida Soomaaliya oo lagu cadaadinayo xiriirka inay noo jiraan ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar dawladda Soomaaliya oo go'aan dhexdhexaad ka qaadatay xiisadda wadamada khaliijka ayaa loo arkaa in ay u janjeerto dhanka dawladda Qatar taasi oo keentay in cadaadis kala kulanto wadamada khaliijka qaar kamida madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya ayaa marar badan isaga daba noqday dalka Qatar waxaana wili fulin ballanqaadka iyo mashaariic dawladda Qatar ay shaacisay in ka hirgelin doonto dalka Soomaaliya walow aan la qarin karin gargaaro iyo sidoo kale gawaare dawladda Qatar ugu deeqday dalka Soomaaliya dhanka kalena dawladda dalka Kenya ayaa waxa la sheegayaa in si dhab loo ogaaday sababta ka dambeysay inay xayiraad saarto isla markaana ay ka soo horjeesato dalka Soomaaliya wargeyska The Standard ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in dawladda Kenya ay ka carootay ballan ay ka baxday dawladda Soomaaliya oo ahayd in ay dib u eegto ficilada shirkadaha caalamiga ah ee doonaya shidaalka Soomaaliya taasna ay sabab u tahay inay ka sii darto xiisada ka dhacaysa labada dal sida ku cad qoraalka kulanka Abriil 3 Nairobi ku dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma iyo dhigiisa Soomaaliya Axmed Ciise Awad ayaa ballan qaaday inay dib u eegi doonaan ficilada shirkadaha Spectrum Geo oo abaabushay shirkii February 7 ka dhacay magaalada London ee ariga dalkaasi Britain waxa la sheegayaa in Soomaaliya ay ka dalbatay Kenya in Spectrum Geo oo laga leeyahay dalkaasi Norway ay ka laabato qariirad lagu soo bandhigay shirka oo muujinayso goobaha shidaalka Soomaaliya laga sahminayo taasi oo Kenya ay aad u dhibsatay Kenya ayaa ku dooday in xirmooyinka shidaalka ee la iibgeeyay qaarkood ay ku yaalaan dhulka ay ku muransan yihiin labada dal qodobkan ayaa kamid ah 5 qodob oo ay Soomaaliya iyo Kenya ku heshiiyeen iyada oo qodobo kale ay kamid ahaayeen in safiirada la isku soo celiyo dib loo bilaabo xiriirka iyo in Soomaaliya ay xarakada al-shabaab ku darto liiska qaraarka qaramada midoobay ee 267 kaas oo dhigaya in la hakiyo hantida la saaro xayiraad socdaal iyo mid huba shakhsiyaadka iyo hay'adaha la xiriirinayaan xiriir ay la leeyihiin Al-Qaacida asay qoraal wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Awad u diray dalka Kenya ayaa shaki waxa uu galiyay qaabka Kenya ay u dhigtay heshiiska isaga oo yiri dawladda Soomaaliya waxay dib u eegi doontaa ficilada shirkadaha Spectrum si ay ugu xaqiijiso Kenya hadii ay jiraan qariirad qalad ah oo la adeegsaday oo aan waafaqsanayn mowqifka dawladda Soomaaliya hadalka Awad ayaa nuxurkiisa yahay in Soomaaliya ay rumaysan tahay in qariirada laga soo bandhigay shirka London aysan ku jirin dhul badeedka laga muransan yahay sida daraadeedna aysan jirin wax dib loo eego taasi oo macnaheedu yahay in mowqifka dawladda Soomaaliya iyo qariirada ay soo bandhigtay Spectrum uu yahay mid iswaafaqsan si kastaba ahaatee waxa wili muran xoogan oo ka dhex taagan yahay labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya taas oo wadamada dunida calaamad su'aal ay ka keenayaan dhanka kalena wili muranka dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaan ku guda jirnay dawladda dalka Soomaaliya ayaa wadnaha
dirtay dhigeeda Kenya kadib markii ay shaacisay in ay wadamada dunida u suuq geyn doonto shidaalka dalka Soomaaliya isla markaana dhawaan ay soo bandhigi doonto dawladda Soomaaliya ayaa marka la sheegtay in la qaban doono shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya kaas oo noqonaya shirkii labaad kadib shirkii hornaantii sanadkan ka dhacay dalka Ingiriiska shirka labaad ayaa ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka wasiirka ayaa sheegay in shirka ka dhacay magaalada Istanbul ay ka qayb galayaan shirkado inta badan ee daneeya arrimaha shidaalka Soomaaliya ee ku yaala qaaradda Aasiya shirka labaad ayuu sheegay inuu ka dhici doono dalka Mareykanka waxaana ka qayb galayaasha inta badan ay noqon doonaan kuwa ka diiwaan gashan dalka Mareykanka sida warbixinta ku sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir Hilaal ma uusan shaacin waqtiga rasmiga ah shirkaasi uu dhici doonaan hase yeeshee waxaa la xusuustaa khilaafka xoogganaa ee ka dhashay shirkii looga hadlay arrimaha shidaalka ee ka qabsamay magaalada London ee dalka Ingiriiska iyadoo weli labada dawladoodna ay ku muransan yihiin arrimaha iyo doodaha ka dhashay shirka shidaalka looga hadlay ee Kenya iyo Soomaaliya qaybaha dhexe warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysan saaxiibayaal iminkan xiisada Puntland iyo Somaliland iyadoo la filayo in maamulada Somaliland iyo Puntland ay isdhaafsadaan maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaaladii ka dhacay Tukaraq ayaa waxa xiisada laga dareemaya deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag xiisada ayaa lagu soo waramayaa inuu u dhaxayso ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland iyadoo dadka deegaanka ay sheegayaan inay ka baqayaan mar kale uu dagaal halkaas ku dhaxmaro xiisada ayaa si gaar ah ay kaga taagan tahay deegaanada Badhan Damalaxgar iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan wada ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland magaalada Badhan waxa ku sugan wafdi horkacaya wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan isagoo halkaas shirar kula leh waxgaradka magaalada iyo saraakiisha ciidamada wararka laga helay ayaa sheegay in xiisada ka dhalatay markii labada maamul isku qabteen doonista ku aadan in iyagu ay maamulaan deegaanada maanta xiisadu ay ka taagan tahay sida Badhan iyo deegaanada hoostaga halkaasi dhawaan waxa ciidamada Somaliland ka goostay saraakiil iyo ciidamo la socda kuwaas oo u wareegtay dhanka maamulka Puntland waxaana Somaliland dhinaceeda ay wadaa abaabul ay ku doonayso inay la soo wareegto deegaanada gobolka Sanaag oo gacanta ku hayaan maamul goboleedka Puntland waxaana sare u sii kacay xiisada labada maamul xilli la filayo in ay dib u kala cishtaan horay maxaabiis ay ugu kala qabsadeen dagaalada xooggan ee dhexmaraya labadaasi maamul ee Puntland iyo Somaliland dhanka kalena arrimaha dalka Kenya ayaa dib ugu laabanayna dawladda dalka Kenya ayaa waxa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in dalka Soomaaliya uu dhexmaro dagaal xooggan oo salka ku haya doorashada madaxtinimo ee Jubbaland sida ay baahisay warbaahinta dalka Kenya wargeyska Daily Nation ee dalkaasi Kenya ka soo baxa ayaa qoray in dagaal xooggan oo ku saabsan doorashada Jubbaland uu dhexmari doono Kenya iyo Soomaaliya iyadoo dawladda Muqdisho ay isku dayi doonto inay Axmed Madoobe ku tuurto xukunka halka Kenya ay go'aankeeda u yahay in ninkaasi uu sii shaqeeyo warbixinta wargeyska uu qoray ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay adeegsan doonto isbahaysi cusub oo gobolka ah iyo dalalka Qatar iyo Turkiga si maamulka Jubbaland looga wareejiyo Axmed Madoobe iyo ciidamada Kenya sida warbixinta lagu sheegay qorshahan ayaa waxa ku jira in ciidamo Ethiopian iyo Eritrean oo aan ku jirin AMISOM la geeyo Kismaayo si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada Jubbaland loona xaqiijiyo in qof dawladda taageersan tahay uu ka soo baxo Ethiopia ayaa si aad ah u soo dhaweynaysa qorshahan iyadoo oo leh ujeedada gaarka inay gacanta ku dhigto dekedda Kismaayo oo ay ciidamada Kenya haatan maamulaan waxaa sidoo kale dhawaan la dhisay ciidamo badda ah oo u baahan saldhigyo ay ku maamulaan badda cas iyo badweynta India kuwaas oo u dhashay dalkaasi Ethiopia sida daraadeed waxaa la sheegay in muhiimad gaar ah dawladda dalkaasi Ethiopia ay siinayso in ay gacanta ku dhigaan dekedda Kismaayo warbixinta Daily Nation ayaa tiri Kenya waxay u baahnaan doontaa furfurnaan iyo xariifnimo si ay uga badbaado seefta Ethiopia iyo Eritrea ee ku soo socoto Soomaaliya adeegsanayso sida lagu yiri warbaahinta dalkaasi ka soo baxda Kenya waa Daily Nation si kastaba ha ahaatee labada dawlad xiriirkeedu markan halkii ugu xumaa iyo maraya iyadoo cirka isku sii shareerayso dagaalka xooggan ee dhexmaraya labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya qaybaha dambe warka warbaahinta xogta dalka ayaan ku siisiqaynaa saaxiibayaal faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhexmara qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada dawladda iyo al-shabaab ayaa ku dagaalama Shabeellaha Hoose ciidamada gaarka ah ee Danab iyo al-shabaab ayaana dagaalkooda la soo warinaya inuu ka dhacay deegaanada hoosta gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo deegaan u dhow deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa xarakada al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay wadeen dagaalna ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa bangaraafta loo yaqaan xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo Aala Yaasir oo u dhow deegaanka lambar 50 ee Shabeellaha Hoose
waxaa jira khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalkaas hase yeeshee wararka lagu qoray baraha taageersan al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in la gubay mid ka mid ah gaadiidka dagaalka oo ciidamada Bangaraafta walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya dadka deegaanka ayaa ku waramayna maqlayeen dhawqa rasaasta la isku adeegsanaya balse aysan ka warhaynin khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray isla markaana ka soo gaaray dagaalkaasi saraakiisha ciidamada Bangaraafta wili dhankooda kama aysan hadleen dagaalka deegaanka Al-Yaasir ay kula galeen xarakada al-shabaab hase yeeshee waxaa la sheegay in ciidamadu socdaalkooda ay sii wataan si kastaba inta badan saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa weerar ku qaada xarakada al-shabaab halkaas oo khasaare kala duwan ay soo kala gaaraan ugu dambeyntiina dawladda dalka Kenya ayaa cabsi xoogan ka muujinaysa Soomaaliya iyadoo amarro cusub siisay kalluumaysatada ka howlgala badaha dalka Soomaaliya iyo xeebaha ka agdhow dalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa amar ku soo rogtay kalluumaysatada ka jilaabta meel ku dhow xeebaha dalka Soomaaliya kalluumaysatada ayaa la faray inaysan ku dhawaan biyaha Soomaaliya sidoo kalena aysan tagin deegaanada ku dhow sohdinta Soomaaliya ee dhinaca badda Joseph Kaniyiri oo ah gudoomiyaha gobolka Lamu ayaa sheegay in kalluumaysatada ay gaari jireen ilaa xeebta Ras Kamboni ee Soomaaliya hadda ay adag tahay halkaas la tago waxa intaas ku daran ciidamada kala duwan ee Kenya ilaalo gaar ah ku hayaan dhaqdhaqaaqa xeebaha Kenya ee u dhow Soomaaliya halkaas oo ku sheegay in ganacsi u badan kontraband laga geliyo Kenya sidoo kalena dadka lagu kala gudbiyo Master Kaniyiri ayaa dhinaca kale kalluumaysatada Kenya ku baaqay isla markaana waxa uu sheegay in laga qaadayo xayiraadii dhinaca kalluumaysatada ee habeenkii ahayd waxa uu sheegay in kaliya kalluumaysatada ay kalluumaysan karaan isla markaana ay imaan karaan bariga Lamu sida uu hadalka u dhigay guud ahaan saaxiibayaal qodobkaas ayaa u dambeeyay warkii aad ka daawanayseen warbaahinta xogta dalka oo aad ku maasantiin daawashadiina hamuugaanina haddii aad ku cusubtiin kanaalkan inaad saartaan subscribe si aad u noqotaan kuwa ugu horeeya ee daawada wararkan iyo warbixinada saaxiibayaal sidoo kale hamuugaan inaad like saarto share-na u dhaado saaxiibada si aad ula wadaagto waad ku maasantiin daawashadiina tan kulan dambe nabadgelyo